Conversation was sheekaysi. I have totally abhorred gebi ahaan buwang nacay having chat with you inaan adiga kula sheekaysto. What is the matter? Waa maxay arrintu? Myself hated you, nafsadeyda ku nacday. It is not good, ma fiicna, to have gloomy of each other inaan dhexdeena isku calolo xumaano. Yes, that's right, taasi waa sax. But balse, you are not good person. Adiga qof fiican ma tihid. Cause maxaa yeelay, you eloped waxaad boobtay my girlfriend, gabadhii saaxiibadeyda. Forgive me, iska kay cafi. If you would told me haddaad ii sheegi lahayd, I would not have eloped her, ma aanan boobi lahayn. So, sidaa darteed, are you still gloomy for me? Weli caloolxumo miyaad ii qabtaa? No, maya, but balse, she was waxay ahayd the reason sababtu I'm alive aan u noolaa. No matter, dhib ma lahan, you can create waad abuuran kartaa another good relationship, xiriir kaloo fiican. It is an opportunity for you, fursad bay kuu tahay.